gaadhigii qarxay ee ku sugnaa xerada Nashville maalintii Christmaska ayaa laga yaabaa inuu ahaa qarax ismidaamin ah. Saraakiisha fulinta sharciga ayaa laga soo xigtay sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka. Baarayaasha ayaa wada baaritaanada DNA-ga kadib markii meyd dad laga helay meel u dhow goobta qaraxa oo xoogana uu ka dhacay. Qaraxa ayaa dhaawacay 3 qofood isla markaana carqaladeeyay nidaamyadii isgaarsiinta ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka iyo 4 gobol oo kale. Ma jirto ilaa hadda wax ujeedo ah oo loo qabtay qaraxaasi ka dhacay gobolka Tennessee, mana jirto cid wali sheegatay in iyagu ay ka dambeeyeen. Dhanka kale, ganacsiyada iyo shakhsiyaadka TV-ga waxay bixiyeen in ka badan 300,000 ilaa 224,000 si loo soo qabto kuwa mas'uulka ka ahaa mashaqadaasi.